أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الثناء لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد إخواني دمان ددوينها إدغيسان يا مركز جوجتان سلامة إسلام كاينو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله. ولا ليال waxaan jeclahay maanta inaan ka hadlo mowduuc aad u muhiim ah oo ku saabsan dalka Djibouti. waxa weeye markaan ka hadlayno dalka Djibouti wuxuu khuseeyaa dad fara badan, ma aha reer Djibouti uu ma khuseeyo. marka hore reer Djibouti buu khuseeyaa macallin maxay leeyahay waa dantii dalkooga. marka labaad wuxuu khuseeyaa dadka Djibouti la jaarka ah, gaar ahaan dadka Soomaalida iyo Ethiopia, Yamanta aad buu khuseeyaa. waxaan nahay isku masiir dadkeenaas oo meel quran ku wada soconaa. wixii ka dhaca Djibouti way taabsanaysaa Soomaaliya, hadday tahay Somaliland iyo Soomaalida kale. Ethiopia way taabanaysaa hadday tahay gobolada Soomaalidu degaan iyo gobolada Canfartu degaan iyo inta kale taba. Yemenna way taabanaysaa wixii Djibouti ka dhaca. wadanada waxa ka dhacana Djibouti uu taabanaya. marka waxaan nahay dad isku dooni hal ah wada saaran. marka ka hadlay Djibouti way wada khusaysaa, si gaarna waxa uu sii khusaysaa reer Djibouti. waxaan jeclahay inaan ka hadlo arin diiniya, siyaasada, dhaqana iyo bulshada. arintaas waxa weeyaan waxaan ku furanayaa kelmad uu yiri caalim weyn oo u dhashay dalka Liibiya oo ku nool Yurub oo kamid ah culimada waaweyn ee ururka fatwada Yurub oo la dhahdo Unays Mabrouk oo ah mufti darajatul mufti gaaray faqihana. wuxuu ka hadlayay siyaasad maxaa la yiraahdaa waa cajiib. wuxuu yiri siyaasad waxa dhacdaa arin 7 arrimood leh amba 6 arrimood leh. wuxuu yiri siyaasadu waa amal, waa shaqo jamaaciya bulshadu ay qabato, ummadu ay qabato, murakkab ah, complex ah, isdul yaalo adag, muaqqad ah oo meel laga gala adag tahay oo rag khatar ay gali karaan. يستهدف objective kiisuna yahay ummadda oo dhan shaqanigeega inuu wax ka qabto si loo xaqiijiyo marka loo gaaro hadafkii uu sheegay danta guud ee bulshada. marka arintaas ku macneeyay aqoonyahanka weyn ee caalamiga ah ee dalka Liibiya u dhashay muftiga ah siyaasad waxa la yiraahdo. okay, annagoo ka dhaqaaqayna kelmadiisa qiimiga badan oo uu ku qoray joornaal ka soo baxa dalka Qatar oo qofkii doonaya uu ku laami karo iyo Al Jazeera ba mowqiceega uu ku qoray. wuxuu markaas wadaadkaas ama caalimka ama aqoonyahanka banseerkaas u macnaynaya siyaasadu maxay tahay. waxaan anu kala soo baxay siyaasadu waa 3 arrimood. dad baa yiraahda siyaasadda iyo nolosha kala saaro, dhaqanka iyo siyaasadda, diinta iyo siyaasadda waxba kama jiraan. qof aan siyaasi ahayn waa nacas, waa doqon. familiga markaad xukumaysid reerkaaga, aabiyo hooyo markaad tahay siyaasi baa tahay. ubadka iyo reerka sad u dhaqaysay iyo dejinaysa istiraatiijiyad siyaasi baa tahay. qolada ugu daran ee tirada siyaasadda ma gallo waa khuruujka qolada la dhacdo, waxba kama jiraan, waa siyaasiyiin weeyaan. lianna waxay galaan sidee baa adduunka dacwadda loo gaarsiinayaa, siyaasatu dacwi dejiyaan. see loo tagi Maraykan, sidee Canada loo iman, see France diinta loo gaarsiin, kawnka oo dhan see diinta loo gaarsiin, habkee iyaa bixi, kee intan gaari halkan organisation bay dejiyaan, waa siyaasiyiin weeyaan. anu waxaan qoray mar min asiyaasati an laa tadkhula asiyaasata fi bacdi alaxyaan. siyaasadda waxaa ka mid ah inaad siyaasadda gelin, sida tabliiq ay dhahdaan siyaasadda ma galaan lianno waxay u arkeen siyaasad ahaan inaan siyaasadda gelin. marka waa sidaas weeyaan. qofku marka uu miskiid maamulayo, miskiid yar siyaasi weeyaan. miskiidku wuxuu u baahan yahay khudbadda iyo akhrin, maxaa laga hadli, miskiidka yaa nadiifadayn, iyo marwaxadda shidi, iyo baktiini, kalmaseerka dadka yaa u shidi, iyo hagaajin, miskiidka dhaqaalihiisa yaa hayni, iyo dadka kala wadi, saacadee la furi, saacadee la xidhi. siyaasad weeyaan. nolol ay siyaasadda ka maqan tahay nolol ma aha. qofka ku dhaha siyaasadda maxaad u gashay, maxaad uga hadlaysaa, isagaa siyaasadda ku jira laakiin ma garanayo inay ku jiro. arinta kale cajiibka weeyaan, waxa ugu muhiimsan ee nolosha qofka bini'aadamka taabata waa siyaasadda weeyaan. diintu inuu bay taabataa, qofkii diinta practically bay taabataa, qofkii diinta tabaqaya sheekh kama dhageysanaya ka diinta tabaqaya ma waayo. laakiin siyaasadda qof kasta ay taabanaysaa. siyaasaddu dhaqaalaha ay taabanaysaa, aqalkaaga ay taabanaysaa,
tacliintaada taabanaysaa waxay taabanaysaa jidka aad maraysa taabanaysaa dhakhtarkaaga taabanaysaa siyaasaddu marka uu madaxweyne khudbadeynayo khudbadiisa noloshaada dhan bay galaysaa walidaalika bay adduunka markuu Clinton hadlayo waxaan jeedaa Obama oo la aamusaya maanta adduunka ma sheegaya Trump iyo Clinton maxaa loogu mashquulsan yahay nolosha adduunka labada qof ku xidhan Clinton hadii madaxweyne noqotana adduunku sibuu ekaan hadduu Trump president noqdana adduunku sibuu ekaan doonaa marka siyaasaddu waa laf dhabarka nolosha weeyaan saadaradeed baan kala soo baxay kelmadda ah siyaasadda objectivekeegu waxa weeyaan shaniga guud ee ummadda taasaan kala soo baxay document in asla garna ma taawiyo arinta labaad siyaasaddu waa maxay waa shaqo siyaasaddu ma hadal siyaasaddu ma majlis la fadhiyo laga sheekayo siyaasaddu ma geed jaado la cuno oo dadka la haway la geliyo siyaasaddu ma been siyaasaddu waa amal istirjuta maanta waxaad qabatay waxan sanadka waxaad qabanaysaa waxa sanadku wixii ka qabanaysaa waxa waad guuraysaa waa camalkaasi muxuu yahay waa jamaaci waa collective camal qof qabta ma waa camal koox qabato koox isku fishina isku siyaasada sidii aad ka arkayseen Turkiga koox baa waday wadanka Turkiga oo Erdogan leh oo le Oglo oo le Abdullah Gol oo le Marta Yildirim waa koox ballaaran oo kuma ku qafa yaa wata ma qof walidaalika markay banaan baxayaan shacabka Turkigu ma sitaan taswiirta Erdogan waxay sitaan calan lianna waa jamaac waa bulsho waa wadan waxa laga hadlayo marka siyaasaddu ummad baa qabata ee qof ma qabto taan waan kala soo baxay kelmadda sheekhaas arinta saddexaad ee aan kala soo baxay kelmadda sheekha waxay siyaasaddu wax adag wax faasiila ma waa murakkabun muaqqadun waa arin adag oo muaqqada walidaalika dadku siyaasadda way ku dhacaan inta badan mucaarad iyo muxaafidba siyaasadda waa lagu hoobtaa maxaa looga hoobtaa waxaa la moodaa wax fudud marka la galayo marka dhexda la socdo laakiin marka ay badato ay ooda noqoto qofka miskiinkii u argagaxa amba uu jabaa amba uu isdhiibaa amba uu hoydaa hadaladaad maqasheen dee uu hoyday hebel uu isdhiibay hebel uu daalay waxaasaa dhacda lianno waxaan buunan markii hore una la socon walidaalika aqoon-yahanka weyn ee dhahdo Jaasim Sultaan professorka jaamacadda adnawxi qadar kelmad cajiib u wuxuu الفاعل السياسي لا يخاف من تعقيدات السياسة ninka siyaasadda wada ka shaqeynaya kama cabsoodo adeega siyaasadda ninka hadii ka cabsiiso xuma hadaad aragtid nin kule war anigu insha Allah wax ma yar sugayaay kule ma siyaasi dadku walaya siyaasigu ma cabsoodo siyaasigu saddex shay buu iska ilaaliyaa siyaasigu muxuu iska ilaaliyaa inuu gadaal eego siyaasi jeesina daratid sadacawada waa fuli arinta labaad oo siyaasigu iska eega wax weeyaan siyaasigu dadka mar hal galiyo dadku maxay doonayaan say u fikirayaan dadku wali ma gaadhin ma bislaan dadku ma yiraahdo siyaasigu arinta saddexaad ee uu siyaasigu iska ilaaliyo waxa kamida uu dhowro in uu ku shaqeeyo waxyaalada ajandayaasha dadka kale oo saddex shay okay maxaan ku yiri xagga dambe hadaad eegtid siyaasi ma tihi hadaad dadka raali gelisid siyaasi ma tihi rida naas qayla tudrak barnaamijkaaga la hirgeliyaa dadku haddii raalli ka noqdaan ku soo raacaan haddii raalli ka noqon waayaan bari u bislaanayaan iska dhaaftaada wad qanci dadka laakiin dadku waxay doonayaan ma ku shaqeyn walaw ittabaca alxaqu ahwaa'ahum hadduu ilaahay hawadeena raaci lahaa dhulku xumaan lahaa ninka caalimkeena dadka ma raaco siyaasigu dadka ma raaco dadku ku qasbaa inay isaga raacaan sanka kagama talo u qanciyaa okay walaalayaal arrimaha waxaan u macnaynaya waxaan waa aarar waa hordhac weeyaan waxaan u imanayaa arrintan ah dalkan Djibouti waanigii mar hore inay bilaabay halkuu ku socdaa ninba maalintii la soo hadlay wuxuu yiri sheekh saddex arrimood oo sheegtay way dhaceen halkuu ku socdaa laakiin laba arrimood oo sheegtay wali ma dhicin marka maxaad u joojisay buuri ka su'aashaas anoo ka jawaabaya idad fara badan oo isoo qorayba waxaan rabaa inaan idhaahdo laba arrimood iyo maanta siyaasadda Djibouti dadka qaarkood ay u haystaan inay ku cusub tahay laakiin dadka waxa ku dhacay cudur la yiraahdo فقدان الذاكرة أفكار عربية وكدقان إنه قفكو لوميو حاسوس لومينتا هذا حاسوستو كالونتو واحد مودي واحد كستو إمي كدعيا واحد عصب أريتها جيبوتي ويكو بدانتاي إن كستي بلشدة أفكان أنكو هل يكو هذا شنا يكو بدانتاي لكن ميدها نيشاغو أريتها واحد كينيا محاكم إذا واحد كينيا نينكا دلكي نكتاليا ونين آد وبسيطة مسكينة لنع عقلها aad u basiida dhinaca fishinka dheer dadka qaar waxa inuu siyaasi yahay
سياسي ما هو شاطر كحيان يرعي على صوت يعني صدق الله والو يقانا لكن ما سياسي ما ذكي انتليجنت ما ninkaas wuxuu yaqaanaa filin ah isagu wuxuu wasiir ka dhigtaa amba shaqaale ka dhigtaa dad isaga iyo kuwa u shaqeynaya ay u dhaxeeyaan 3 generation مثلا hada soo qaatay wasiirkeena caafimaadka hada soo qaatay iyo madaxweyne geelle inta u dhaxaysa daahan waxa u dhaxaysa 3 generation ba u dhaxaysa yani waa 3 generation waxa viid ah marka daakira male daakiradan dhexda way maran tahay wixii meesha yaalay oo dhan way maran tahay si basiida madaxweyne geelle 99 buu dalku bilaamay 99 77 ilaa 99 dadkii dalkan wax ka soo qabtay taariikhda kuma jiraan lagama sheekeeyo aabihii qaranka xasan guuleed Allah yarxamo qofna kama hadlo waxa la xasuustaa ayaanta la tagayo 27 juwan amba 6 juwan calanka loo dabaldegay maalinta ciidanka ee qabrigiisa ubax la dhigayo yaa la xasuustaa inuu wadankan xasan guuleed soo maray أحمد ديني أحمد قفنا ما حصلته إدريس فارح بني قفنا ما حصلته مؤمن بهضون فارح قفنا ما حصلته آدم رب العوال قفنا ما حصلته عمر أغون قفنا ما حصلته أوكي محمد إسماعيل جدي حرد قفنا ما حصلته وهلو مجرا صارك أو سيود شيخه الله يرحمه بحدته dadka inta leeg maxaa loo xasuusan layahay waxa loo xasuusan layahay taariikhdii baa laga bilaabay 99 daakiradeeni baa la masaxayaa maxaa taa ku horeeyay 77 wixii ku horeeyay baa hore loo masaxay maxamuud xarbi yaa la masaxay ilaahay u naxariisto dadkii raali bay ka noqdeen in la masaxo dadkii waxay oran kari laayeen balaas xarbi balaas raambooda u bahayaan war balaas xarbi baa dhada balaas mililik u bileen balaas 77 juwan baa dhada daakira mali iskaxdeeni way ka soo guuri kari laadahay raambo waxay u soo guuri kari laadahay xarbi maxamuud xarbi Allah yarxamo ninkii calanka sameeyay ninkii gobonimo u dhaqaaqay ninkii ummad u xorowday ninkii dadka oo dhanba ka warkacay ilaa Soomaaliya taariikhda laga yaqaano waan aasnay maxaan u aasaynaa waxaan rabnaa in dadka lagu sameeyo bilaa daakiro arinta buu sameeyaa arin labaad buu sameeyaa wuxuu sameeyaa arin muhiim ah dadku ma yaqaanaan wuxuu sameeyaa wax la yiraahdo dadka mashquuli dadka maxaa lagu mashquuliyaa dadku waa 3 masaakiin ay noloshu dubatay oo meel ay ka soo kacaan iyo meel ay u kacaan gelin markay soo kacaan maxaad cuntaa halkeed ka barjaysaa kuwa maxaa loo sameeyaa gaajada lagu hayaa qolo labaad baa jirta qolada labaad shaqo yar bay haystaan waxaa lagu mashquuliyaa mishaarkii mu soo dhici mise ma soo dhacayo koonaankii mu soo dhici mise go'aya sheekadu inta looga dhigaa qolo saddexaad baa jirta cad baa la weyn baa wadanka yaala cadkii baa la googooyay 4 qurus baa laga dhigay maalinta bay naga sheekay doonaa 3 qurus qofka cuna qurus baa la soo gooyaa qurus baa la soo tuuraa quruska ay ku mashquulaan si u kala qaadan lahaayeen inta ay ku mashquulshan yihiin daakiradii markaa masaxaysa daakirada masaxaysa markaa caawin naga sheekeeray ikhwaani fillah maskax guurka inagu dhacaysa maskax meerka inagu dhacaysa maxaa kamid ah maanta wadankeena waxaan maalin hore inaga soo sheekay qiso qariib oo dadku ay la yaabeen laakiin markii dambe waa runta ay dhahdeen waxaan inaga soo sheekay wadanka waxa ka dhacday wax la anfarisation Soomaaliya oo al arif baa sameeyay maartay uu nool yahay subhanahu wa ta'ala ilaahay xafido wuxuu sameeyay calanka hortii inuu wadanka oo dhan anfar u dhiibo anfartu taa way ictiraafsan yihiin Soomaalida iyo ummadda kale laga tirtiro laakiin markii aan calanka qaadanay waana kii waxaan sameynay Somalisation anfarti baan tirtirnay okay Soomaalida waa farxaday si ay anfartu wadan yahayn maxaa ku xigay Soomaalida oo faraxsan baa ciisa siyaasadeed la sameeyo Soomaalida kala tirtiray saaqii gudboorsigii daaroodkii wixii kale wadanka kula lahaa xamati balagay وصار العلياسيون إنجليش بماسيناسيون أخيرا ما حيسوق قاعد يسمى نجي لهيد جيلياسيون وإسماعيل العمرة ما هريجي حتى إسماعيل العمرة أم إسماعيل ساسيون كده هي خضريساسيون هل كان بيسوق قاعد يسمى إميكا فيلينك جيبوتي دات كدر لغو مشغولية محوية وحال لغو مشغولية داتكي إسماعيل العمر كأقدوها ريراهان إيه مماسيناسيون يعني سو شيء إيا لغا تخلصيها والإريا إسماعيل تاني بالإريا جنى غار زكريا الإريا سعد عمر جيلان لغو صعدا حسن با لغو صعدا حسن سعيد نكا مسكين كان لغو صعدا حسن مدوبي وحا هوري لوغا تخلصي مارتي ركله مارتي سليمان مير ساسو كله اوكي ماشر وحا كصعدا بروبلم مشكلة داسي ما ها مشكلة عصب هاد اوكتين oo wadanka
waxaa dib u qaadanaya reer kale oo laga soo xoreeyey oo inay cadow yihiin laga dhigayo canfar wadankii canfar baa la wareegaysa baleeg luqadda lagu sheekanayo horta inay qalad laga dhaadhiciyo adoo reer Jabuutiya wadanka canfar baa la wareegaysa okay maxaa ka dhacay baa la wareegaysa nagiib baa inuu wuxuu noqdo doonay oo nagiib waa qof Jabuutiya xaq buu u leeyahay inuu sharaxo oo president noqdo qof kasti oo canfariya oo reer Jabuutiya xaq buu u leeyahay inuu sharaxo oo isku diyaariyo madaxweyne Jabuuti ka noqdo qof futidi kara ma jiro qof kasti oo Soomaaliya oo reer Jabuutiya xaq buu u leeyahay inuu madaxweyne wadanka ka noqdo qof kasti oo Carab oo Yamani oo reer Jabuutiya xaq buu u leeyahay qof kasti oo Faransiisa qof kasti oo Suudaaniya oo xuquuqdii dastuurku wuxuu ka doonayay buuxiya wuxuu xaq u leeyahay inuu isku sharaxo inuu madaxweyne noqdo waxa wixii noo qorna weeyaan laakiin dadkeen waxa lagu warinayaa si loo sameeyo siyaasadda dhado farriq tasud qaybi saad u xukuntid waxa kaloo jirta siyaasadda jirta mashquuli oo been u sheeg si aad halka dambe aad u soo dejisay istaraatiijiyada ku shaqeynaysa awhaam baa usmaysa imagination waxyaala beena u tuuraysa okay waxaan ognahay qisad soo dhacday RBBda dhexdeeda oo lagu yiri laba nin ilaa labadu ay dhinteen maanta noqo sayane Ismaaciil Geediye muun bahdoon dawladda madaxweyne ka noqonaysiin isdiyaariya RBBda waxa ka dhacay waa la garanayaa dagaal waraqadaha la bixiyay kaarasha la bixiyay laba qabiil baa loo kala baxay istuwar waxna weeyaan laakiin labadiiba laga dhaxqaado iyagoo ila fadhiyo masarka waa film la sameeyo haddaan fahmi weyno filmaantaas ilaa halkan bay iminka lagu soo gaadheen dadkii oo yaacaya yimid oo leh wadankii waa la wareegay su'aal baad weydiinaysaa ayaa la wareegay wadanka man iyaana lagala wareegay qofka la wareegay waayo waa qaladada la galay weeyaan dadka la mashquulinayaa dadka masaakiintana intaas ka shaqeynayaan inta bay fuulka ku cunayaan subaxii maqaaxiya inta bay jaadka ku cunayaan galabtii ku barjeerayaan inta bay bobka ku ciyaarayaan odayaasha masaakiinta inta bay dhalada jaamacadaha dhigta ka sheekaysanayaan yani wadanadu marka ayna jirin joornaal la akhriyo hal joornaal baa soo baxayay inankii soo saarayay khadar prof de mathématique ilaa madaxweynaha inankiisa u ahaa prof madaxweynaha inankiisa uu garanaya madaxweyne marka hadlayo ilmihiisa aqalka ugu tagay u dhigay wuxuu ugu dhigay iskoolka qof kasti oo reer Jabuutiya oo maanta generation yaryara way ogyihiin inuu yahay profka uu yahay ragga ugu wadanka ugu horeeya xisaabta ee maadka inuu yahayna waa la garanayaa maaha in laga sheekeeyo khadar ninkaaba madax ka ahaa mushaarkii baa laga gooyey shaqadii baa laga eriyey waxa weeyaan xadhig baa loo dhigay haddaad bir jooraal u qortid lagu xidhi doonaa dhowr bilood waxa oo dhan marka lagu sameeyey iminkana saacaddan hadlayno wuxuu dhex fadhiyaa meeshii fiishta doonay okay maxaa loo xidhay maxaa loo haystaa walaalkii oo isagana sheekhiisa macalinkiisa ahaa Dr. Xamud ayuu Dr. Khadar sii dhaweeyay airportka markuu galayna uu yara sawirtay wax caadi ah iyo raaxku laamin la raaco la saaxiibna noqdo dad kala qolaa inay wala noqdaan saaxiib noqdaan meesha lama ogolo xabsi ku jira Dr. Xamud oo rasaas ku jirto oo inuu rasaasta u dhinta halis ugu jira oo habeenkii gacanta qaadi kar la garaac oo kul boqolaal qof ay u duugayaan si loo baranayo si qarquruntii hore yani iyaa la celiyay abixin dad siyaasiyiin oo mucaarad ay soo baxeen qaar baa galala jooga qaar baa Yurub jooga maxaa isaga loo haystaa maxaa loo celinay Xamud boqolkiiba 90 mucaarad ma ahde boqolkiiba 10 mucaarad uu yahay in mucaarad lagu yaqaan ma oo xisbi ku jiro mucaarad ma arag Xamud laakiin limaada maxaa loo celiyay ma garanaysa Abdulrahmaan Teegis ma ogi inuu cudur weyn leeyahay laakiin waxaan maqlay inuu wadnuhu yani taasiyo yar leeyahay wax badan aan ahayn laakiin caafimaad buu la baadho wala olodi inuu arbar qabo limaada maxaa loogu diiday adigu ma macni karisid waxa macnay u baahan tahay maaratay kol bar dad diid shalay toola daahir baa la diidi jiray maanta daahir fasax maanta Abdulrahmaan diid bari toola fasax maanta kan diid yani aqligeena inuu saa loogu ciyaaro goorta aan ka korayno ayaan isweydiinaya saddex shay inaan yeelaan xagga dambe ka sheegi doonaa saan u korno marka maxaa looga jeedaa politiga hadafka laga leeyahay muxuu yahay hadafka laga leeyahay waxa ilhaa in lagu mashquuliyo inaad been ka shaqaysid inaad xaqiiqada ka fogaatid inaad runta ka fogaatid waa takoobada laga leeyahay arinta labaad ee laga leeyahay waxa weeye inaad cadow lagu abuuro beena adiga marka tahay nin Soomaaliya anfartu cadow maaha xaafada lixaad arxiba cadow maaha xaafada toddobaad arxiba cadow maaha arxiba iyo siis iyo toddoba iyo waxaan dhan waa reer quraatay oo reer Jabuuti la dhaho marka cadow beena lagu sameeyaa wadankii dadka la qaadanaya waxa la ka fajacay kamid tahay xagga majliska laga shaqeynay maqaxyaha laga shaqeynay dad waliba Jabuuti ka yimid
oo u dhow systemka u dhow amba u dhawaan jirin oo mucaaradku imika u dhawaaday ay adduunka la meereysanayaan. arrinta saddexaad ee loo jeedo waa maxay hadafka laga leeyahay? hadafka laga leeyahay waxa weeyaan 5 sano oo ka bilaamaysa markii inuu Cumar xukunka isku soo celiyay qofna ma dooranay oo dul fadhiistay ilaa 2021 maxaa la yeelay? 3 jaranjaro oo doorashada waa la mari doonaa. dowladii hoose waa doorasho yar, dowladii baarlamaankii waa doorasho labaad iyo taa madaxtooyada. 3 doorasho sidii loo mari lahaa, systemkii la sii dajin lahaa waxaa la wada rag aanu loo bixiyay J8 ragaraado, yani generationkii raggani maarata ku hooseeyay ee laaqay filinka iyo imika la soo karinaya. marka inta adu waxa ku maqan tahay waxan baa la deeranayaa wadanka, waxa lagu deeranayaa dee waa wadanka. marka taswiirta imika aan ka arko anigu aad moodaysid in uu yahay wadanadii mooyaanaashkii wadan nool, يعني مقالة بورة ما تصويرتي مركان داودو ضد نولو قروح بدن هرقيسة قروح بدن برعو قروح بدن ديردبع قروح بدن ودن كيجي مركان داودنا dadka ka soo baxaya haduu qofku minister ahayn amba dibiti ahayn awlada iyo faqriga iyo miskiinka iyo meesha lacagta taala meelahan uma dhawo waxyarada habeen dhowt waa qoslay diyaaradii Djibouti u furaya madaxweyne baadhi Djibouti qaar yaro dhanaaf cariga ku hadlaale alxamdulillaah لأول مرة لنا طائرة وكون 1973 دي Djibouti اللي سميه فرانسيسكو جوا يا Djibouti اللي سميه Djibouti ay tagi jirtay Yaman, ay tagi jirtay Ethiopia, ay tagi jirtay maalinta anaku aan jaamacada tagaynay 1986 waxaan raacnay diyaaradda Djibouti la Qaahira. Djibouti diyaarad shaqeysa ahayd oo qaranku leeyahay, laakiin marka diyaaradda Djibouti ma aha Djibouti marka diyaarad uu qof leeyahay Djibouti laga dhigo dadka lagu wareeriyo xashka $100 lagu geenayo dadku ma bislaanayaan, dadka qaarkood in la walaala doonaya. marka ilaahaga baan ku jirina. okay maxaa yeelaa walaalayaal? maxaa yeelaa horta intay malaa'ig noo soo dhaadhacdo inama tababarayso oo bini aadan lagama dhigayso. koow inaan horta bini aadan noqono. bini aadanimada waxaa lambar 1 ka ah inaan garto durwaagayga iyo deefwarkayga. maxaan xaq u leeyahay? maxaan igu waajiba? bini aadanimada lambar 1 bay ka tahay. gaal ahoo muslim ahoo waa inaad garanaysid maxaan xaq leeyahay. xaq aad leedahay ha ka tanaasulin in yarna. haddaan in yar ka tanaasushid qof bini aadan ma tiid. bini aadanimadu maaha inaad san leedahay dhaga leedahay socotid qosashid filmaanta gashid waxa ma bini aadan. taas waa xayawaannimo. bini aadanimadu wax weeyaan waa inaad leedahay xuquuq insaani ah. walidaalika bay yiraahdaan Francisco qofku wuxuu bini aadan noqdaa markuu xaqiisa haysto. inta ka horeysa ma bini aadan. waa lambar 1. lambar 2 waa inaan noqono wadani. wadani ma noqon karnaa. wadanigu muxuu ka dhigayaa? wadanigu wuxuu ka dhigan yahay waraaqadaha Djibouti baad haysataa wadani baa tahay. waraaqadaha Djibouti ma haysatid bini aadan Djibouti ku nool baa tahay wadani ma tiid. waa sidaa weeyaan. wadanigu waa intaa. halkan 4 sanaad jooga saxsaajisa wadani noqonaysa Canada, Ingiriiska, Faransiiska ma koosa. Djiboutiyaannimada waa inaad garatid. waxaad Djiboutiyaan ku tahay jinsiyadda ku tahay nationality-ga. waxaad leedahay qof kasti oo reer Djibouti wuxuu xaq u leeyahay iyaad leedahay. xaqaaga ina lagugu mani sheegan oo lagu oranin alxamdulillaah koran wada heshaama, alxamdulillaah biyo ku soo galnima, alxamdulillaah dikadii baan hagaajinayna ma. waxaas waa serviceka dawladnimadu. marka dawladdu qotay waxa ugu yar ee maala yacniga la furin يعني madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wadankani Theodore ma furo kaabadaha boqolaalka ah kumaakunka ah tobanka kuna ee wadanka dhisan uma dhawaado. waxa wata dawladaha hoose xawta warshadaha ma furo, hatta koronto ma furo. waxa shaqadiisa maaha. waxa dhada waa serviceka koowaad ee dawladda. muxuu markaa isagu furaa ka shaqeeyaa? wuxuu furaa markay dhalinyaradu ciyaarayaan sportiga uu yimaada uu furaa. wuxuu furaa markay muslimiintu ciidayaan uu yimaada uu furaa. wuxuu furaa marka ay dadka mahanduuska iyo siikhadu ay ciyaarayaan diintooda uu furaa. wuxuu yimaada dadku isku dhaxgaliya politiku sameeyaa noloshu furaa ma furo serviceka. waxaas waa shaqadaada kale ila arag buuranaysid. anu inaan ciyaalkayga maalinkaas u shaqo tagoon bariis iyo baasto u keen haddana kale waa furaya dawada ka dhado waa lagu qasray. waxa waa shaqadeedii. inaan ubad koriyo waa shaqadeedii. inaan iskool ku daro waa shaqadeedii. inaan tacliim bar waa shaqadeedii. taaba dadka uga sheekoonayaan kale igu dawada waxaas waxa lagu qasbayaan. talabada arrinta saddexaad waa maxay? waa inaan jecelahay isbedelka. saan u noolahay si maaha. 2013 talaabadan qaadnay talaabo caadi ma ahayn.
tallaabo argagixisay bay ahayd mudane geele tallaabo argagixisay bay ahayd sistemka tallaabadaas wixii ku horreeyana waa taariikh wixii ka dambeeyana gaadaal waa taariikh ismaaciil cumar geele 2013 waxa uu tahay maxbay u tahay annakana waxba inoo tahay laakiin taasi maxay ahayd waxay dhaqaaq iminka maxaynu looga baahan yahay waxaynu looga baahan yahay si aan isbedelka u samayno inaan wax nacno maxaa nacnaa waxa aan ku nool lahay waa inaan nacno anu waxa ugu horeeya reer Djibouti aan oran lahaa waa inaan nacno waxyaan in waagu markuu bariyo jaadna loo keeno oo sida xoolaha nala siiyo la dhado jaadkii soo galay fadhiisto cuna oo sida xoolahan cuno oon mirqaano oon raaxaysano iska seexano oo bariis waxaan soo kacno ay nolosheenu sidoo ahaato ilkaheenina ma jiraan wadnaheeni ma jiro kaliyaheeni ma jiro maandhood waxay ka sheeganayaan daweyn xuma wadanka soo gala maaragtay furunkii oo xumaaday waxa bay ka sheekayaan oo cajiiba wax kastiba oo xumaaday isbedel mu iman kara ma iman karo Erdogan waxa lagu yiri wadanka sidoo u bedeshay wuxuu hortaana isbedelay ko waxaan keentay rag isbedelka jecel laba saddex waxaan joojiyay wadanka in faran laga xado wadankii marka lacagtiisa iyo dib ugu noqotay saddex shay ana isbedelay dad isbedelka jecel baan keenay xoolihii wadanka la xadayna waa joojiyay inta hadii la sameeyo wadanka sidoo isbedelaya laakiin yaa sameyn kara dad isbedel doonaya أنا waxaan weydiinayaa bini aadan ma nahay reer Djibouti waa su'aal weeyaan ma nahay wadaniyiin reer Djibouti dhulkooga jecel dalkooga jecel xuquuq iyo waajib garanaya saddex maandaro inuu isbedel dhaco saddexdaas shay haday naga run tahay waxa weeyaan isbedelku wuxuu inoo jiraa inta uu sankaygu faruurteeda u jiro wax dheer ma marka insha Allah taala waxaan ni rajaynayaa inaad ku mashquulin wadanka waa la wareegayaa waan la wareerinayaa inaad ku mashquulin فيلنكي مؤمن يجيد لك شيء بري جهره إن لجو مشغولين إن لجو مشغولين هذانا مرصد أحد وحي أسن كهر رئيسنا لجو أورنجري ذلك إسلام يرير كي قال لو ريجي إك يضع وطنية إسلام رير كي يكون وطنية ويا ورجل جبوتية لكن ذلك محل قاعد دعينا حافظ إنه اللي حد بالك ينجروا لجري كارتتوا ويرا بوكي بنجا قاعدنا ساي ركب سمين جري وحى بين بهذا وحاسي بين تبقى ميكلو بدل الملكة marka waa inaan ka korno inaan been ku noolaano ilaa mata waa inaan weynaano si aan weynaano waa inaan saddex shay noqono wad maasantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh